saacadiisii saxnida sideed ku ogaatay nama seegana warkooda ka dhageyso radio Hiiraan Weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku salaysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay ka dhageyso radio Hiiraan Weyn udub dhexaadka warbaahinta bismillaahi raxmaani raxiim dhageystayaal kusoo dhawaada warka dahornimo ee warbaahinta Hiiraan Weyn qodobada aad ku maqli doontaan waxa uu dooroon dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo guulo ka kala sheegtay dagaalkii ka dhacay gobolka Jubbada Hoose warar dheeraad ah oo ka soo baxaya kulan la filayo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ku dhaxmari doona magaalada Ankara ee dalka Turkiga maamulada Puntland iyo Galmudug oo ka wada hadlay nabadda ama nabadgelyada gobolka Mudug mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo kormeer ku tagay xarunta wasaaradda garsoorka ee Galmudug akhbaaraadkan dibadda kugu heynana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee dalka Suuriya oo baaq u diray shacabka reer Suuriya soo gudbinta warkan waxa idin suura galiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba isku soo laabasho wanaagsan dhamaantiinba waa 11 bisha December 2024 kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan shukri iyo sahra ayaa wada jir idinku warrami doona cusubla ayaa dhanka farsamada naga kaalmeyn doona dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa waxay guulo ka kala sheegteen dagaal maanta ka dhacay gobolka Jubbada Hoose Cabdiqani Cusubla ayaa dhameystiray warkan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga oo war xasaasi ah ka soo saartay dagaalka maanta ka qarxay aagga Kabooni kaas oo u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamo uu soo diray madaxweyne Axmed Madoobe ay saakay weerar ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda kadibna uu sidaasi ku qarxay dagaalkani oo dhaliyay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac subaxnimadii hore ee saakay ayaa koox ka tirsan ciidanka Jubbaland uu si qaldan u isticmaalay Axmed Madoobe waxa ay soo weerareen fariisin ciidanka xoogga dalka iyo daraawiishta Jubbaland ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu yiri qoraalka dhanka kale qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Jubbaland ee ku sugnaa duleedka deegaanka Kabooni ee gobolka Jubbada Hoose oo ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyaad ay sheegeen inuu ku soo dadgureynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidamada dowladda Jubbaland oo ku jira dadaaladooda isdifaacista ayaa jab xoog leh u geystay maleeshiyaadka xamar laga soo dadgureeyay iyadoo ciidamada Jubbaland ay guulo wax ku ool ah ay ku gaareen ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay soo kala Jubbaland sheegashadeeda ay ku sii dartay inay ciidamadeedu la wareegeen difaacyada hore ee Kabooni kadib dagaalkii saaki ka dhacay halkaasi ciidamada dowladda federaalka ee Muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada Kabooni ay weerar ku soo qaadeen fariisimaha ciidanka Jubbaland runtii weerarkan ay ku bilaabeen drone ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada kadibna dagaalku u balaadhay walina uu socdaa hadda waxa iska soo dhiibay horin kamid ah ciidamadii Muqdisho laga keenay ayaa isa soo dhiibtay si fiican baan oo la dhaqanay si fiicanna waa la dhaqmi doonaa waxaan nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn waana ka xunahay mas'uuliyadaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iska leh waxaan nasiib darro weyn ah hubkii iyo gaadiidkii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd ee loogu talagalay in dalka lagu difaaco in maanta dadkii loo adeegsanayo arrinta waa nasiib darro weyn waxa nasiib darro ah cunaqabatayntii laga qaaday dowladda Soomaaliya gaadiidkii iyo hubkii caalamka uu ku deeqay ee dowladda la siiyay inay dadkeedu u adeegtana waa nasiib darro weyn daroonta maanta loo adeegsaday dowladaha iska leh
waan soo bandhigaynaa waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada walaaladeena la soo khalday ee maanta inoo imaaday iyaguna waan soo dhaweynaynaa sida ugu wanaagsan ayaan ula dhaqmaynaa gurigooda ayay imaadeen dalka marti kuma aha qof kasta oo la soo khalday oo maxay ahayd loogu soo sheekeeyay meeshan inuu cadow joogo oo si khaldan dagaal loo soo galiyay oo ciidamada Jubbaland u yimaada sida ugu wanaagsan ayaan ula dhaqmaynaa haddii Allah uu dalo ogolaado saraakiisha iyo dhammaan ciidamada cid kasta si wanaagsan aan u abaalmarin doonaa haddii Ilaahay idmo dagaalkana uu dhamaanayaa waa maalmo yar waxaan ku baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo caalamkaba inay ogaadaan dagaal xaq darro ah in lagu soo qaaday Jubbaland inay isdifaacdana ay xaq tahay Jubbaland maanta way isdifaacaysaa weerarkuna iyaga soo qaaday haddana waa la jabiyay maxay ahaydey waana ka xunnahay runtii ciidamada Soomaaliyeed maanta inay dhaxdooda ay dagaal u ka socdo runtii arrinta aad baan uga xunnahay iyadoo baahi badan loo qabo cadawga al-shabaab iyo khawaarijtana ay meelan ka fogeen ay ka daawanayaan ragii shalay difaaca ku wada jiray maanta inay iyaga xabad isku ridayaan mas'uuliyad darradaas dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iskale inay ka waantoobto oo maanta Jubbaland way ku samaysay tan oo kale waxay dhacday 2013 ayuu dawladda madaxweynaha Xasan Sheekh uu madaxweynaha ka ahaa uu magaalada Kismaayo soo weeraray maxay ahayd sidan oo kalena uu dagaal uga riday 500 oo qof oo dagaalkaas yaa ku dhimatay shacab badan baa ku barakacay hanti badan baa lagu waayay maantana sidoo kale u socotaa waxaan isleenahay annagoo ka xun dagaalkaas isaga dagaalkaasi ma aha mid ay Jubbaland mas'uuliyadeeda ay leedahay waxa kale oo rabaa inaan u sheego shacabka Ras Kamboni inay istijiyaan deegaanka waa deegaankoodii ciidamada jooga ee ku sugan cid kasta oo gacanta Jubbaland ku jirta sida ugu dhaqso ugu wanaagsan ee ugu akhyaarsan baa loola dhaqmayaa insha Allah ta'ala cabdiqanaac cusuble ayaa warbixinta warkaasi soo jeedinayay waana uu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa wasiirka markaasi ku-xigeenka amniga Jubbaland oo ka hadlayay dagaalkii maanta ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose dhanka kale warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulanka Xasan Sheekh iyo Abiy Ahmed ku dhex mari doona dalka Turkiga kaas oo looga hadlayay arrimaha khilaafaadka sii xoogaysanaya ee labada wadan sida uu ku waramayo Cabdinajiib Isxaaq Cusmaan warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan kulan lagu wado inuu maanta ka dhaca Turkiga kaasi oo lagu dhameystirayo dadaaladii dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Itoobiya sida laga soo xigtay ila wareedyo lagu kalsoonaan karo kulanka ayaa ka dhashay dalab rasmi ah oo ka yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isagoona weydiistay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan taasi oo inuu ka caawiyo soo afjiridda xiisadda sano jirsatay ee Soomaaliya iyo Itoobiya kulanka ayaa ku bilaaban doona qaab u kala dabqaadisa oo madaxda labada dal si gooni ay u kulmi doonaan isagoo sidoo kale madaxweynaha Erdogan isagan u gogol xaari doono isku soo dhawaasho horseedi kara kulankan in si toos ah isaga hor yimaadaan heshiisna la gaaro xogta la helay waxa ay sheegaysaa Abiy Ahmed inuu muujinayo rabitaan ku saabsan inuu si buuxda ugu tanaasulo damaciisa oo ku riixay heshiiska muranka dhaliyay oo la galay Somaliland bilowgii sanadkan gabagabada ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa waxa lagu soo waramayaa inuu taagan yahay go'aankii dawladdiisa hore ay u saacishay taasi oo ah in aan marnaba aysan gorgortanka kali goorin xeeldheerayaasha diblomaasiyadeed ayaa u arka arrintan inay soo daadijisay kulanka Ankara qayb ka tahay go'aanka dawladda Soomaaliya ee ka gaartay ciidamada Itoobiya inay dalka ay ka baxaan taasi oo ah in admis dhammaan laga saaro ciidamada Itoobiya dhamaadka sanadkan ayaana ku leeyihiin in ciidamada Itoobiya gabi ahaanba laga saaro dalkeena Soomaaliya watahay Cabdinajiib aad buu u mahadsan yahay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay kormeer ku tageen xarunta wasaaradda gargaarka ee Galmudug Cabdiraxmaan Axmed Maaskara ayaa soo jeedinay warkan gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle oo uu heliyaan qaar ka mid ah wasiirada wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada ayaa booqasho ku tagay xarunta wasaaradda gargaarka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb wasiirka gargaarka Galmudug Cabdiraxmaan Makaawi ayaa ka warbixiyay booqashada oo gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma oo ku tagay iyo waxyaabaha ay kala hadleen halkaasi waxaa Galmudug nagu soo booqday wafdu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka mudane Maxamuud Macalin wasiirada dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka agaasimayaasha meesha hadda aan taagana waa
wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka xarunta xafiiskeeda weynaaye galmudug waxaan rabnaa inaad uga mahad celino kulankii qiimaha lahaa hay-adda sodma ay soo abaabushay oo ahaa shirkii county humanitarian forumka oo shalay noogu qabsoomay galmudug dhuusamareeb inaan uga mahad celino maaragta guddoomiyaha waxaan kaloo rabnaa inaan halkan uga mahad celiyo wada shaqaynta aan leenahay dhammaan wasaaradaheena gargaarka iyo hay-adda sodma oo ah inaan u khidmayno oon u shaqeyno bulshada Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka la tacaalahayo marka waxaan inaan u mahad celino guddoomiyaha inaan u mahad celino maarta waftigiisii wasiiradii dowlad goboleedyada ka socda dhammaantood guddoomiye wasaaradii waatana shaqooyin fiican ka socda waxaan si gaar ah inaan ugu mahad celiyo tiimka wasaaradda gargaarka wasaaradda dowladda galmudug agaasimaha oo ah maarta laf dhabarka ugu muhiimsan agaasimaha Cabdullaahi Wardheere oo qaybta ugu muhiimsan ee wasaaraddeena ay ku taagan tahay dabcan oo aan dhihi karo maarta 90% shaqadii asaga fuushay culays badan uu naga dhimay iyo tiimka kale ee waaxyaha agaasimayaasha oo hadda nagala jooga Asam Beel oo nagala joogo dhammaan iyo tiimka wasaaradda dhan ayagana inaan si gaar ugu mahad celiyo soo dhaweyntii iyo shirka abaabulkiisii iyo maarta u khidmeyntii dadkii noo yimaaday ayagana inaan si gaar ugu mahad celiyaa rabaa ku soo dhawaada galmudug waxaan idin rajaynaynaa maadaama maanta maalinka ugu dambeysay tahana aad bixaysaana safar khayr qaba idin rajaynaynaa waxyaabii aan ka wada hadalnay oo ahayd inaan gargaarkii iyo shaqooyinkii iyo wixii naga kala daadsanaa aan mideeno isku aadano wixii naga hadlaysana ayadana insha Allah tacaala waa sida uga ballanay dhanka kale magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabiyeen labada maamul ee Galmudug iyo Puntland kaasoo looga hadlayay arrimaha nabadda ee markaasi gobolka Mudug oo labada dhinacba ay qaybo kamid ah maamulaan gobolkaasi kulanka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada maamul iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug waxaa looga hadlayay sidii sare loogu qaadi lahaa nabadda gobolkaasi qaar kamid ah odayaashii mas'uuliyiintii ka qayb galay kulanka ayaan warbaahinta la hadlay waxaa loo gal lahaa dhacdooyin hore isbarkaday kuwa hadda socda waxaasoo dhan in hor istaago maanta halka waxaan ka rabnaa odayaashii iyo socdaalkii in halkaa uu kasii bilowdo hadduu ilaa yiraahdo dabcan listiyada waa qolo walba way qortay si official ah in arrintaa loo daafuro baa ka dhimanayd muhiimadda una isugu nimid odayaashaas xoojintooda iyo garab istaagooda iyo sidii loo dowladeyn lahaa ugu muhiimsan waan ognahay shaqadii lixaadka lahaa ee gobolkan dhinacyadiisa kala duwan ee nabadeyntu ay kasoo qabateen muhiim bay tahay in shaqadaas la daadajiyo oo dadka wax magaratada ah oo annaga ehelkeyga ah oo meel kasta isku gumaadaya in fadhigooda loogu kaco oo ay shirarku ka guuraan 5 star iyo global iyo jasiiro inta u dhaxaysa oo madasha iyo deegaanada wax ka dhacayaan iyo bulshada is haysta in la dhexgalo runtiisa waxaa liftaanka kulankan dhammaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka intaba kulankan dabcan si la sheegay waxaa soo agaasimay wasaaradaha arrimaha gudaha dowladaha Puntland iyo Galmudug dabcan kulankani wuxuu qayb ka ahaa ama daba socdaa saala socotaan madaxweynaha dowlad goboleedyada oo halka yimid ayaa waxay fureen shirarkii la xiriiray nabadeynta gobolka Mudug ayagoo maamulada degmooyinka iyo gobolka amray inay soo diyaariyaan odayaal dhaqan oo ilaa 30 gaaraya kuwaas oo nabadda ka sii shaqeyn doona anagoo tixraacayna dabcan ama awaamirtii madaxweynayaasha ayaan dabcan waxaa go'aansanay maadaama la soo furay odayaashii 15 ka ahaa ayaantan ay jirtay habacsanaan runtii ay ka faa'iideysteen dadkii dhibaatada abuuri jiray inaan bilowno platform oo runtii odayaashii la isku keenayo waa tahay dhageystayaal weli waxaad dhageysanaysaan warka duhurnimo ee Hiiraan qodobadii gudaha ayaa inta inooga eeg dibadda intaan u gudbin ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha Cristiano Ronaldo Messi Ribery kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duhurnimo waxyaaba ugu waaweyn ciyaaraha haddii aan eega saaxiibayaal xalay waxa la ciyaaray kulamo waaweyn oo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League kulamo adag iyo natiijooyin kala duwan ayaa ka soo baxay ciyaartii sida weyn loo sugay waxay dhexmartay kooxda Los Blancos Real Madrid iyo Atlanta kulan kooxda kubadda cagta Madrid ciyaarteedan loo riyaaqeen balse guul ay doonaysay ama baahi weyn u qabtay ay gaartay ciyaartooyda Jude Bellingham, Vinicius Jr iyo sidoo kale Kylian Mbappe ayaa goolasha u dhaliyay kooxda Los Blancos taasi oo ah in kooxda
ay guul weyn ay gaartay si guud haddaan idinku dulmaro ciyaarihii la ciyaaray kulankii ugu horreeyay Dinamo Zagreb iyo Celtic ayaa ciyaaray 2-2 ay ku kala baxeen kooxda Liverpool hal gool umada ay Girona kaga badisay ciyaartooda xalay waxaana goolkaasi ugu mahad celinaya ciidanka Mo Salah oo gool penalty u dhaliyay Atlanta Madrid ciyaartii weyn la sugayay 3 gool iyo 2 gool kooxda Madrid ayaa ku badisay Internazionale Milano oo laga badiyay Leverkusen badisay saaxiibayaal kooxda Inter iyadana gool dar xanuun badan ay xalay dhadhamisay Brest iyo sidoo kale PSV Eindhoven ciyaartoodana hal gool iyo kooxda Brest ayaa ku badisay Club Braga Sports Lisbon ciyaartooda 2 gool iyo gool kooxda Braga ayaa ku badisay Aston Villa comeback cajiib ay sameysay RB Leipzig ayay gool muhiim ka gaartay inta gurigeeda ku booqatay 2 gool laga hormaray comeback sameysay 3 gool ugu badashay 3 gool iyo 2 gool ciyaartaasi ku soo dhamaatay kooxda Villa baa ku ciyaartayna si weyn bandhig wanaagsan u sameysay halka sidoo kale PSG 3 gool ay ku badisay Bayern Munich 5 gool ayay kooxda dabcan Shakhtar Donetsk kaga badisay caawa kulamo adag ayaa jiri doona ciyaaro waaweyn dhammaan ciyaaraha xisaab 5 saac ay soo gali doona wali Atletico Madrid iyo kooxda Slovan Brest lagu magacaabo iyagana 2:45 daqiiqo Lille sidoo kale 2:45 la daawan doona balse ciyaaraha kale dhammaan tusha ay soo gali doonaan Inter Milan iyo sidoo kale kooxda Red Star Braga ayaa ciyaari doonto halka sidoo kale Arsenal iyo Monaco caawa 5 saac Benfica iyo Bologna 5 saac Borussia Dortmund iyo Barcelona 5 saac Feyenoord iyo dabcan kooxda Sports Braga 5 saac Juventus iyo Manchester City kooxda City Talyaaniga aadi doonta caawa 5 saac beenima ay ciyaari doonto dhageystayaal kulankan wuxuu noqon doonaa mid xiiso badan Young Boys iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta lagu magacaabo kooxda waa Strike iyagana caawa 5 saac beenima ay la daawan doonaan kulankooda xiisaha badan kulamadaas ayaa jiri doona caawa waase kulanka la sugi doono kulan guul ama geera iyo Pep Guardiola ciyaari doona maadaama xaaladiisu runtii meelaha ugu dambeeyay tartanka uu kaga jiro wuxuu doonayaa in guul uu gaaro kadib markii kooxda Talyaaniga ay ku ciyaartay Juve uu ka hortagay waxyaabahaas ayaa ugu weyn ciyaaraha saaxiibada aan dib u celiyo stuudiyaha iyo qaybaha kaarsadulka duurnimo Cristiano Ronaldo, Messi, Ribery, Van Persie. xubintii ciyaaraha aynu intaa kaga soo laabano akhbaaraadkii dibadda iyo Sahra Gabre. Ra'iisul Wasaaraha ku-meel gaarka ee Suuriya ayaa sheegay in la jooga waqtigii ay dadka reer Suuriya ay ku raaxaysan lahaayeen xasiloonida kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Bashar al-Assad. Maxamed al-Bashiir oo ahaa madaxii hore ee taliskii fallaagada ee waqooyi galbeed ee dalkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee Al Jazeera kadib markii kooxda Hayat Tahrir al-Sham ee u magacaawday xilkii ku-meel gaarka ahaa ee ilaa laga gaaraya bisha Maarsa ee sanadka soo socda. Bashiir ayaa hogaamiyay shir toddobaadkii ka dhacay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan xukuumaddiisa cusub iyo xukuumaddii hore ee Assad oo looga hadlayay xil wareejinta iyo hay'adaha. Arrintani ayaa imaaneysa iyadoo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya uu sheegay in fallaagadani ay tahay in fariintooda wanaagsan ay u bedelaan ficil ay ku maamulaan dalka. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay aqoonsan doonto ayna si buuxda u taageeri doonto dowladda Suuriya ee soo socota ilaa inta ay ka noqonayso dowlad ku dhisan hannaan lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay ixtiraamna u leh dadka laga tirada badan yahay. Sanadkii 2011 Assad ayaa waxa uu ku horyimid kacdoon nabadeed oo dimuqraadiyad doon ah waxaana ka dhashay dagaal sokeeye ay ku dhinteen in ka badan nus milyan qof iyadoona markaasina ay dagaaladaasina ay ku barakaceen dad gaaraya 12 milyan oo ruux. warkii doornimo ee Hiiraan aad kala socoteen waa inaga intaa cidii isagoo isagoo maqal qoraal iyo muuqaal ah waxay dib ka heli karaan baraheena bulshada ee nabadgeliyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraan haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net. Radio Hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.